بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كان امتحانها برشاد Adobe Photoshop qaybtan waxaanu ka eegaynaa waxa la dhaho tools Photoshopku waxay leedahay tools fara badan tools waxa la dhahaa wax shaqo gooni ah ku qabanaya marka toolska Photoshopka waxa loo qaybiyaa ilaa 5 nooc ayaa loo qaybiyaa oo kuwa halkan taxan qayb walba ama group walbana waxay qabtaan shaqo u gaar ah tusaale ahaan waxaad ku kala garanaysaa groupada waxa u kala dhaxay calaamada yar ee madow ayaa u kala dhaxaysa underline ka ayaa u dhaxaysa group walba tusaale group kan 1 2 3 4 5 6 lixdaas waa isku group waxa loo yaqaanaa selection tools ka waxa ugu soo horeeya move toolka tusaale ahaan markaan ku dhufto waxaan kaxan karaa image-ka meel kale ayaan geeyn karaa any reposition waan ku sameyn karaa booskan doonayaan geeyn karaa waxa ku jira marquee toolkii qayb ka mid ah intaan copy gareeyo ayaan ku paste gareyn karaa meel kale kabacdina waxaan ku sameyn karaa soo jeedi karaa waxa ku jira waxa la dhaho lasso toolkii oo aan mataqaanaa isagana ku sameyn karo inaad image-ka iyo background-ka kala jirtid ama image-ka qayb kamid ah ka jirtid waxa kale ku jira waxa la dhaho quick selection tool oo image-ka intaad mataqaanaa daqiiqadiiba dooratid kabacdina aad ka reebaysid inta aad markaa adigu u baahnayn ayaa jira oo isaguna shaqada ku qabanaya tusaale ahaan inta ay highlight garaysaa inaan ka dhigan karo color gooniya inaan ka dhigan karo ayaan sameyn karaa waxa jira tools kale oo kala duwan oo la dhaho crop toolku wuxuu ku qabanayaa inaad qayb kamid ah image-kaaga jartid saan crop toolka markaan tago image-kaaga qayb kamid ah ayaan jari karaa waxaan leeyahay waxaad ii jartaa intaa ayaan leeyahay kabacdina intan ayaan leeyahay marka toolskan way fara badan yihiin dropper tool ayaa ku jira oo tusaale ahaan marka aad doonaysid colorkaas oo kale inta copy ka qaadatid inaad ku paste gareysid inta kale documentiga inaad ku paste gareysid ayaa dropper toolka isticmaalaysaa marka toolskan oo selection tool baa la isku dhahaa qaybta labaad ee toolska aan eegi doono painting tool ayaa la dhahaa painting toolku waa istiigadii qalin beesalkii waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jirta tusaale istiigadoo kale ku jirta image-ka qaybtaada rabin ayaad taatiraysaa intaas siiskeeda weynaysid ayaa taatiraysaa marka taasuna waxay ku qabanaysaa waxa la dhahaa painting tool shaqa waxay ku qabanaysaa inaad image-ka qayb kamid ah ka saartidba way fara badan yihiin waxa ku jira gradient tool oo ku ogolaanaya inaad midab u sameysid background-kan sawirka ka dambeeya inaad midab u sameysid tusaale haddana layer cusub ku soo darno oo background u sameyno background-ka image-kan isticmaalno image-kan waxaan u sameynay background ayaan u sameynay ayaan rabno marka shaqo badan ayuu qabanayaa qaybta ka xigta waxa la dhahaa vector tools oo kuwa kugu sahlaya inaad ku soo dartid qoraallo sidoo kale inaad ku soo dartid shapes ama qaabab tusaale waxa ku jira noocyadii kala duwanaa shapeska oo aad ku soo darsan kartaa rectangle-kii goobadii waxa kale ku soo darsan kartaa custom shapes kuwa kale oo kala duwan oo ku qabanaya shaqooyinka aad adigu markaa u baahan tahay shape-ka markaas wartid just enter ayaad leedahay wax fara badan ayaad ka bedeli kartaa colorkiisa muuqaalkiisa wax fara badan ayaad ka bedeli kartaa marka kama soo geeyon karno insha Allah casharkeena ayaynu mataqaanaa ku isticmaali doonaa qaybtan ku xiga waxa la dhahaa generalized group weeye waxa kamid ah hand toolkii oo documentigaaga marba meel ka xayn kartid especially marka aad zoom ka ugu sameysid in hand gacanta isticmaashid kabacdina marba meesha aad rabtid marka aad tagtid waxa kamid ah zooming-kii oo aad marna badin kartid marna yareyn kartid zoom in iyo zoom out ayaa kamid ah oo aad u isticmaali kartid control iyo minuska iyo control iyo plus-ka aad u isticmaali kartid sidoo kale control iyo plus 0 ayaa taabanaysaa marka doonaysid inay shaashadaada fit ku noqdaan waxa la dhaho zooming-ka ama soo dhaweynta iyo fogeynta toolka ku xiga isticmaali kartid waxa foreground iyo background sawirka harka dambe iyo background-ka ayaad u adeegsan kartaa waxa kale oo ku sameyn kartaa waa isticmaali kartaa oo mid walba mid kale daba marin kartaa sidoo kale waxaad sameyn kartaa reset ayaa dhigi kartaa si generalkii ku soo celin kartaa madowgu waa harka soo horeeya cadaankuna waa background-ka oo ah harka dambe marka toolskan shaqooyin badan ayay ku qabanayaan kan ku xiga waxa la masking oo inagu waxaan u baran doonaa insha Allah casharadana soo socda kana waa full screen inaad ka dhigtid daaqadaada kabacdina full screen-ka ama ka seshid ama full screen ka dhigtid documentiga marka ku shaqeynaysid toolskaas shaqadoodu way fara badan tahay insha Allah inta ayaynu ku soo koobaynaa waxaynu ku eegi doonaa casharadana dambe toolska mid walba shaqadu qabto oo billahi tawfiiq